بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ka hadli doonaa haddii uu eebeydmo mowduuc aad xasaasi u ah oo aan sidoo kale isleeyahay mowduucyadii hore uu ka khatarsan yahay waana shiicada ama qolada loo yaqaano shiicada oo waayadan dambe runtii laynoo bumbuuninayo shiicada oo qiyaastii in ka badan 1000 sano ka jirtay dunida islaamka meelo badan oo kamid ahna ku lahayd dad raacsan oo caqiidadooda rumaysan taariikhda islaamkana raad ku yeelatay oo xilliyada qaar dunida islaamka meelo kamid ah xukuntay ayaa maanta waxaa muuqata inay si xawli ah u dardargeliyeen fiinta fikirkooda gurracan ee ay rumaysan yihiin waxaad arkaysaa wadamo badan oo aan taariikh ahaan lagu aqoon shiicada inay maanta xarumo iyo masaajida ku leeyihiin sidoo kale dad raacsan ku leeyihiin inta badan muslimiintu wax badan kama oga gaar ahaan shacabkeena Soomaaliyeed waxba laga yaabaa dadka qaarkood inay u qabaan shiicadu inay tahay afarta madhabadood oo kale marka waxa habboon in loo aqoon yeesho oo la ogaado shiicadu waxa ay tahay ereyga shiica luqa ahaan waa alfi'ah ama koox shiicadu waxa ay leedahay kooxo badan oo sii kala daran laakiin qadarka ka dhaxeeya wuxuu yahay in cali radiyallahu anhu ka aaminsan yihiin inuu yahay ka ugu khayrka badan uguna fadliga badan saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam isla markaana uu isagu xaq u lahaa inuu qabto hoggaanka muslimiinta nabiga sallallahu alayhi wasallam markii la oofsaday dabadeed ayna ahayn in cid kale qabato haddii cid kale qabatana ay tahay in laga boobay dabadeedna ay tafiirtiisu qabanayso fikirka shiicada sida taariikhdu warisa waxa aabe u ahaa dhagaxna dhigay ninkii la oran jiray Cabdullaahi ibn Saba oo noolaa qarnigii koowaad ee hijriyada ninkan oo reer Yaman ahaa gaar ahaan qabiilka la yiraahdo Ximyar waxa la yiraahdaa ummaddan reer Ximyar ee waa uu ku dhex dhaqmay asal ahaan wuxuu ahaa Yahuudi ninkan waxa la qiyaasaa inuu islaamka soo galay xilligii khilaafada Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ama dabayaaqadii Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sida ka muuqatay fikirkii wax xambaarsanaa iyo habdhaqankiisuba wuxuu ahaa nin fidno iyo kala geyn la soo dhex galay dadkii muslimiinta ahaa bilowgii horeba waxa uu bilaabay inuu yiraahdo ama uu gado fikir qariib ku ah islaamka nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadana aan ka sugnaan ee uu isagu la kaliyoobay dabadeedna bilaabay inuu dadka ka gado fikirkaas waxa uu ahaa inuu yiri nabi ma jiro intuusan dhiman wuxuu ku dardaarmi jiray cid xilka kaga dambeynaysa waxaana ku xaq leh aalabeedkiisa nabiga sallallahu alayhi wasallam qaraabadiisa waxa ugu fadli badan cali radiyallahu anhu sidaas ayuuna nabiga sallallahu alayhi wasallam ugu dardaarmay in cali radiyallahu anhu khilaafada leeyahay fikirkan wax yiraahday inuu Cabdullaahi ibn Saba ugu horeeyay waxa qirsan oo qoraaladooda ku cadeeyay culimada shiicada la fahantooda hadaba ninkan waxa uu isu diyaariyay dhexdana u xidhay sidoo fikirka u gadi lahaa uguna heli lahaa dad raacsan una dagaalama ninkan wuxuu rabay inuu dadka muslimiinta kala geeyo waana ay dhacdo fikirkiisa dad badan oo islaamka cadow ku ahaa ayaa ka faa'iideystay kuna dadaalay xilligaas laga soo bilaabo bulshada muslimiinta waxa ku bilowday wax la yiraahdo ama lagu yeero kooxo u dhigtay in ay islaamka gudaha kala dagaalamaan ninkan habdhaqankiisu wuxuu ahaa inuu daah isku qariyo fikirkiisa inuu dad u dhiibo isaguna una ismoojinin waa dhaqanka Yahuudda sidoo kale wuxuu isaga gooshi jiray magaalooyinka muslimiintu ay aadka ugu badan yihiin si uu u gado fikirkiisaas gaar ahaan magaalooyinka ka fog xarunta islaamka ee Madiina oo ay saxaabadii waaweyn joogeen meelaha uu xushay inuu suntiisa iyo waabadiisa ku afuufo waxa aad ugu badnaa dadka uu islaamku ku cusbaa inkastoo saxaabada qaarkood joogeen haddana waxay ahayd san tilmaamniba miduu si qarsoodi ah u fidin jiray dadka ay aqoontooda diineed hooseysa ayuu ku beer la xawsan jiray aalabeedka iyo qaraabada nabiga sallallahu alayhi wasallam si uu fikirkan u gado wuxuu u kala socdaalay magaalooyin kamid ah Ciraaq iyo Masar kooxdan shiicada la yiraahdo oo bilowgeedii hore ka duulaysa fikir siyaasadeed xukun iyo cid xaq u leh xukunkaasi ayaa ugu dambeyntii isku rogtay koox caqiide iyo mabaadi rumaysan kadib markii ay ku soo biireen dadyo badan oo doonayay in islaamka dhagraan ama ka aarsadaan maadaama uu burburiyay diimahoodii caqiidooyinka ay maanta shiicadu rumaysan tahay waa kuwa inta badan salka ku haya caqiidooyin hore iyo bidac ay iyagu ku soo dareen dadkana ay uga dhigeen diin iyo madhab ku abtirsada islaamka waxa kamid ah waxyaalaha ay aaminsan yihiin arinta imaamada oo ah in nabigu sallallahu alayhi wasallam uu u magacaabay cidda xukunka uga dambeynaysa taasoo ah mid uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala cadeeyay quraanka kariimkana ku sheegay nabiguna sallallahu alayhi wasallam uu ka dardaarmay calina uu ahaa ninkii ugu xaq lahaa isagana uu kala sii dardaartamay labadiisii wiil ee Xasan iyo Xuseen sida ay u kala weyn yihiin kadibna ay sidaasi ku soconayso silsiladaasi oo imaam kasta ay wiilkiisa urad dhaxlayo arrinkan waxa ay u daliishadaan dhacdadii Qadiirhum oo ay leeyihiin waa meeshii uu nabiga sallallahu alayhi wasallam kula dardaartamay Cali radiyallahu anhu runtii dhacdadan meel raad loogama hayo muxaddisiinta sunnada iyo taariikhyahanada muslimiinta
meelna kumayna caddayn dardaaranka dhacdadaasi. Shiicadu waxay leeyihiin kutub u gaar ah oo ay ku soo arooriyaan axaadiis oo ay sheegaan inay ka sugnaadeen nebiga sal slam, oo inta badan ay ku jiraan rag lagu yaqaano been abuuradka iyo daciifnimada axaadiistooda, sida kitaabka alkaafi oo uu qoray alkuleyni oo lagu soo ururiyey dhowr iyo 10,000 oo xadiis. waxay yidhaahdaan wuxuu u dhigmaa kitaabka saxiixulbukhaariga. sida la caddeeyeyna axaadiistaasi waxay u badan yihiin been abuur iyo kuwa dabar go'an oo aan loo hayn raad taxan. waxaa kaloo ay aaminsan yihiin cismada oo ah in imaamyadu yihiin macsuumiin, yacni dad ka dhowrsan qaladka sida ambiyada oo kale. sidoo kale waxay aaminsan yihiin in imaamyadu ay leeyihiin mucjisooyin ay dadka tusaan sida ambiyada, taasoo caddaynaysa imaamnimadooda. waxay aaminsan yihiin taqiya oo macnaheedu tahay in la qarsado waxa la rumaysan yahay. mabda'ani waxa uu ka mid yahay usuusha biyo kama dhibcaanka ah ee ay shiicadu aaminsan tahay. la'aantiisna qofka diintiisu sax ma aha, yacni waxay uga dhigan tahay iyada oo salaada laga tegey. waxay kaloo yidhaahdaan taqiyadu waa 90% diinta. waxay rumaysan yihiin inuu jiro musxaf aan ahayn qur-aanka kariimka, kaasi oo la yidhaahdo musxaf faaduma. waxay aad u weyneen ciidda nayruuska ama dabshidka oo ah ciid ay lahaan jireen reer Faaris oo ka soo jeeda majuusiyada ama dabcaabudka. waxay kaloo aad u weyneen ciidna u sameeyaan maalinta 9aad ee bisha Rabiicul Awwal. waxay yidhaahdaan waa ciiddii Baaba Shujaacudiin, waa magaca ay ugu yeedhaan Abulu'lu al-Majuusi oo ahaa mujrimkii dilay amiirkii mu'miniinta ee Cumar ibn al-Khadaab radiyallahu canhu. sidoo kale ciidda Qadiir Qum oo ah ciid ay weyneeyaan kuna aadan maalinta 18aad ee bisha Dulxija. waxa ay ka fadilaan labada ciidood ee Carafa iyo Soonfur. maalintaasna in la soomay waa sunno adag. maalintaas waxay yidhaahdaan waa maalintii uu nebigu sal slam kula dardaartamay khilaafada Cali radiyallahu canhu. waxay xaflado baroordiiq iyo tacsiyadayn u sameeyaan dilkii Xuseen ibni Cali radiyallahu canhu, iyadoo xabadka iyo dhabarkaba la iska garaacayo ilaa dhiig la isaga keeno. waxyaalo badan oo islaamka xaaraan ku ahna la sameeyo 10 maalmood ee ugu horreeya bisha Muxarram ee baroordiiqdaasi ay ku jiraan. waxay rumaysan yihiin in arrintaasi ay tahay allow dhowaansho iyo dembidhaaf. qofka taga magaalooyinka muqadaska u ah shiicada sida Karbala, Najaf iyo Qum, maalinkaas waxaad ku arkaysaa waxyaabo lala yaabo oo aan wax xidhiidh ah la lahayn islaamka iyo habdhaqankiisa wanaagsan. waana waxyaabaha ay diinta ku soo biiriyeen dadkana ku beerlaxowsadaan. waa baari u ahaanshaha aalabeydka. aalabeydku waa ka beri. waxa ay duraan waxna ka sheegaan saxaabada rasuulka sallallahu calayhi wasallam marka laga reebo in yar oo farakutiris ah. runtii ma aha wax lagu soo koobi karo hal muuqaal waxyaalaha ay ku soo biiriyeen diinta. waxaana loo baahan yahay inaan noqonno ummad wacyi leh oo la socota kuna baraarugsan qolada noocan ah ee habowday iyo wixii la midaba, maadaama aan waayadan dambe arkayno xataa Soomaali qaadatay fikirkan guracan, kuwaasi oo waday inay faafiyaan.